السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن اشتفتم أنا ومنى محمد عبدية تمام ولا لها ميلان جوجنبا إلهي هاي نقولنا بديالو أكو براتين وجنال مركو أغوريسا عرورتا special needs كأه فوكس كيسو تهي مدى لبادنا عرورو دان طبعا إيهانا أيسان كما قنين إيو طبعا برنامج كسابسن هيكسي إيه هدفك نلاشا oo caruurtii iyo annagaba dad waaweyn ahaanba aan soo galayno oo motivationka ku saabsan oo kala ah dabcan cilmi nafsiga, cilmiga bulshada iyo cilmiga barashada. Khaasatan caruurtu khuseeya haddana kama maqna qofka weyni waayo qofku markuu asagu uu isyaqaano ayuu ilmihiisana caawin karaa. muhiimaddu waxay tahay waalidka iyo hooyada ilmaha haysaahi inay programkan nala fahanto. waxaan isku dayayaa wax ay yiraahdaan afka qalaad ay ku yiraahdaan cognitive development, cognitive interviculum bay dhahaan jarmalku, oo ku saabsan horumarka garashada caruurta ama bini aadamkaba iyo marxaladaha ay soo kala maraan. badanaa annaga maadaama aanan daraasaad badan ka samaynin cilmigaas wax badan kama naqaano. waxaa jira nin bilaabay oo ilaa iyo hadda meel walba oo cilmiga looga hadlayo yacni aasaaskiisa iska lahaa lana soo qaato maxaa la dhahaa daraasaadkii ama researchkii uu ka sameeyey. waxaa la yiraahdaa ninkaas Piaget wax saasaa la dhahaa magaciisa. wax badan oo theorygii uu asagu ka tegay ah ayaa looga faa'iiday. 4 marxaladood ayuuna u qaybiyey garashada qofka bini aadanka ah iyo marxaladaha ay soo kala maraan. yacni wuxuu ku saleeyey waxay afka kuleyba qalaad ku yiraahdaan ama constructivismus oo af jarmalka ah iyo englishkoo noqonaya constructivism buu ku saleeyay. macnaheeda maxaa laga wadaa? ogolaanshaha aqoonta ama vision oo af jarmalka ama knowledge oo englishka ah, barashadeeda iyo qaabka qofka isaga dhisayo, yacni inay ku xiran tahay qof walbaba da'da uu jiro, baahida aqoontiisa ama baahida barashada uu u qabo. ilmanimadan ay kasoo bilaabato qofku inta uu da'diisu jiro bay mar walbaba ku xiran tahay baahida uu aqoonta u qabo iyo baahida uu garashada inuu wax kala garto u qabo. afka qalaad markaa waxay ku dhaheen self constrated ama jarmalka waxay dhaheen selbst konstruiert qofku inta uu asagu mar walbaba qaadan karo. waa sida dee weelka inta aad u la egyahay bay buuxiisa ama wax aad ku shubi kartid ay ku xiran tahay. qofka bini aadanka ana da'diisay ku xiran tahay barashada uu qaadan karo, waxa uu baran karo. qof walbaba garaadkiisa yacni inta da'diisa garaadkiisa jiro ayay ku xiran tahay. marka Piaget 4 qaybood ayuu u kala qaaday garashada ama maxaa la dhahaa horumarka garashada ama cognitive development ama cognitive interviculum waxay ugu yeeraan. 4 stage buu u kala qaaday. haddaba markaan 4taa stage ama qaybahaas oo dhan da ahaan isbedelo kala duwan soo maro iyo marxalado kala duwan khibrado kala duwan ka dhaxalno, ayaa bini aadamku gaaraa meesha ugu sareysa aragtidiisa ama garaadkiisa ama aqoontiisa. stageka koobaad ama qaybta koobaad wuxuu ku sheegay the sensory motor stage age oo ah da'da ilmuhu markuu dhasho weliba uusan maxaa la dhahaa yacni eberka ah ilaa iyo 2 sano uu ka gaaro. da'daasna ilmuhu wixii ay kala kulmeen dee dadkii kasoo horreeyey oo markaa wax barayay
ayuu bartaa oo irleeben ah wuxuu la kulmay iyo afaarun khibradii uu ka helay waxaas buu wax ku bartaa ilmuhu. kadib waxaa soo raacaya sheegay ama halkaanba 5 baa laga sheegaa. marka 5taa qaybood waxaa ka mid ah dabcan maskaxdii baana maamulaysa garashadii iyo maxaa la dhahaa garaadka qofka maskaxda abaa maamulaysa. 5taa qaybood marka waxaa ka mid ah inay rabto maskaxdu inay wax badan aragto oo ay aragga u isticmaasho, wax badan maqasho oo ay dhagaha maqalka u isticmaasho, inay wax badan uriso oo ay u isticmaasho sanka iyo urkiisa inay wax carfiso ama uriso ama yacni maxaa la dhahaa inay wax badan dhadhamiso oo ah dhadhankii afkii inuu ilmihii dee maxaa la dhahaa wax walba iyaga afka la aada iyo inay wax taabtaan iyo taabashadii. 5taa qaybood ayaa maxaa la dhahaa ay u kala saareen. maxaa la dhahaa unugyada maskaxdeena waxay rabaan wax badan inay arkaan, inay maqlaan, inay maxaa la dhahaa uriyaan, inay maxaa la dhahaa dhadhamiyaan iyo inay taabtaan. bay maskaxdu taabashadii iyo intaasay wax ku barataa maskaxdii markaa ka bacdi. marka ilmaha marka dhasho wuxuu leeyahay wax reflex ee dhahaan reflection ama reflection oo dee ilmuhu reflectionkaas ilmuhu wax ku bilaabayaa. bilowgaasna waxay noqonaysaa inuu dhalada qaabka u nuugayo waa qaab reflection maaha wax waxbarasho iyo ku salaysan, laakiin waa reflection ama naaska hooyada uu u nuugayo kale waa reflection. ka bacdina aqoon ah wuxuu sameeyaa inuu caadaysto waxaas wixii caaday u noqdaan yaa individual oo wuxuu sameynayaa gewoonheid ah. gewoonheid waa caado ayay cunuga u noqdaan. waxaa caadadiina waxay keenaysaa inuu barto xataa inuu suulkiisa nuugi karo yaa inuu suulkiisa ilmihii nuugi karo. marka ilmuhu marka da'da 4 bilood gaaraan oo 4 bilood gaaro cunugu wuxuu baranayaa awal jirkiisa kaliya ku mashquulsanaa iyo wax reflection ah wax kaloo aqoona muusan hayn. laakiin ka bacdi 4 bilood maxaa la dhahaa ka bacdi wuxuu bilaabayaa cunugii inuu barto adduunkiisii ku xeernaa wixii kale oo korkiisa ka baxsanaa ayuu bilaabayaa in uu yacni maxaa la dhahaa si aqoon ah si maxaa la dhahaa si ula kac ah uu u fahmo inay wax kala jiraan inuusan korkiisa kaliya jirin wax asaga ka baxsan inay jiraan ayuu ilmuhu fahmaa. marka ilmuhu da'du u sii siyaadaba waxay ay baran in ay si ula kac ah markaa wax u sameeyaan yacni si absishti ah oo ula kac ah inay markaa ilmuhu wax u fahmaan wax u sameeyaan ayay bilaabayaan. muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay inuu ilmuhu haysto wixii da'daa ka bilowda de maskax shaqaynaysa inuu haysto wey. marka ilmihii maskaxda wax ka gaaro de waxba ma baran karo, laakiin ilmihii maskax shaqaynaysa haysta dee muhiimaddu waa intaa. marka muhiimadda wadada dheer ama kobaca iyo horumarinta xasuustaas shaqaynaysa ama garaadka ayaa qofkii wada. taasna waa tan keenaysa inuu maaragtay maxaa la dhahaa socdo maxaa la dhahaa horumarkii qofka ama ilmaha ama objectigaas yacni maxaa la dhahaa maskaxdiisa ah ayaa keenaysa qaab permanent ah in uu maskaxdii u shaqayso oo mar walba wax u duubto oo mar walba yacni ay wax badan markaa maskaxdii ay fahanto ay maqasho hadday shaqaynayso waaye maskaxdaas hadday shaqaynayso ilmihii markaa barashadiisii way siyaadayaan. da'daa ay ku jiraan yacni 4 bilood iyo wixii xoogaa ka saa'ida oo hooyada ama qofku uu ciyaarsiiyo markaa ilmaha haya oo uu ku ciyaarsiiyo kasoo qaad maxaa la dhahaa waxa qalabaadka ilmaha dee ay ku ciyaaraan oo kaba soo qaadoo kale maxaa la dhahaa kushal tiir waxay dhahaan halkan I don't know English wax lagu yiraahdo in ilmihii inta la tuso haddana laga qariyo wax la tuso laga qariyo waynu kula ciyaarnaa. ilmihii wuxuu u haystaa wixii la tusay ee laga qariyay waxaasi inay sidaa ku qarsoomeen inaysan bajirinba in ay saa u malaynmayo waxa kale in laga qariyay in hooyada ka qarisa ma yaqaano wuxuu u haystaa inay wixii saa ku tageen oo uusan mar dambaba arkaynin. muddo ka bacdi ilmuhu wuxuu ogaanayaa in ay jiraan waxyaalo uusan asagu markaa arki karin yacni inuu garto kadib garashadiisii ay siiso in waxyaalo ka qarsoon ay jiraan laakiin jira yacni inay jiraan
inay hooyada xataa hadday wax ka qarisay ee waxay jiraan oo meeshii ay ku qarisay uusan aqoonin laakiin waxa kan wax jira ay yihiin oo haddii wixii laga qaado oo la qariyay aysan ahayn in wixii halkaa ma aragtay aysan ku jirin oo saa ay ku tageen da'diisu markay sii korta wuu fahmayaa garashadiisana way sii saaidaysaa wax ka badan buu sii ogaanayaa in wax laga qariyay inuu wixii hadhow uu isdhoo xagee la dhigay oo xoogaa uu ka fikiro ama maskaxdiisii yacni ay fahmayso in waxaan laga qariyay ayuu da'da noocaasa ayuu ilmihii gaarayaa moor uu yacni da ugu darsanto wuxuu kaloo ogaanayaa in ay jiraan dee waxyaalo badanoo ka qarsan oo uusan aqoonin in yacni inta aqoontiisu tahay ee aqoontu ka badan tahay wuu fahmayaa ilmihii waqtigaa dee kadib ilmuhu waynu wada ognahay waxay bilaabaan in ay wax walba inay ogaadaan ay isku dayaan oo ay nooya geerig waxay halkan ugu yeeraan ama curious ay noqdaan in ay wax walba sanka la raacaan in ay wax walba inay dhadhamiyaan damcaan inay dhawaaqa dhageystaan in ay yacni dhawaaqa dhegta u raariciyaan oo kale in ay la hadlaan sida bisadaha hadday dadka guriga joogto xayawaanka oo kale markaa bisada iyo anagu waxaan idhahdaa war ilmahan waxba ma oga bisadiibuu laakiin wuxuu rabaa wax ka duwan buu arkay ilmihii waxaan ka duwan inuu ogaado inay isku yacni inuu fahmi karo luuqadooda hadday bisad u joogto ama cidda dadkanoo kale eybaa u jooga eygoo kale inuu ilmihii ogaado waxa kan maxay yihiin waxa kan ma hadlayaan ma isku hadalbaa ma isku yacni ilmihii ogaanshuu bilaabayaa teeda kale wuxuu bilaabayaa dhaqdhaqaaq kabacdi yacni markuu da-da soo gaaro inuu yacni markaas waa ilmo maxaa la dhahaa inuu ma aragtay erkundan inuu sameeyo yacni explore ama find out ya inuu wax ogaado inuu rabo inuu socdo oo maarkino uu bilaabo maxaa la dhahaa dhaqdhaqaaq iyo gurguurad iyo istaag iyo socodkii iyo wax walba oo yacni orodkiibaa imaanaya taasna waxay sii badisaa oo maxaa la dhahaa ilmaha ma arkinoo jir ahaantiisii activitygiisii mobilitatekiisii baa sii bata ilmuhii markuu moor uu ordo ama socod uu bilaabo ama wuxuu bilaabo aqoontii iyo activitygiisii baa badanaya dhaqdhaqaaqa batay ee ilmuhu yacni markuu uu korkii actiif noqday oo ilmihii gurguurtay ama socday ama orday taasi waxay sii siyaadinaysaa aqoontiisii ilmaha waayo hadda meel ka dheer meelihii uu gaari karay oo dhan buu gaarayaa uu socod ku gaarayaa ama orod ku gaarayaa moor uu dee adduunyadii uu maxaa la dhahaa uu sii gaaro adduunyo kale iyo dad kale iyo wax uusan aqoonin oo kale aqoontiisii cognitive-ka ahayd baa sii kordhaysa yacni maxaa la dhahaa knowledgegiisii oo cognitive-ka ahayd ayaa sii kordhaysa ilmihii aqoontiisii ama garashadiisii baa kordhaysa laga wadaa inkasta oo ilmaha cognitive developmentgiisa ama cognitive individualgiisa sii kordho oo maadaama uu dee qof jir ahaan ka koray oo ordaya oo xataa laga yaaba uu deganaa iyo oo lagu hayay inuu banaanka uga baxo uu maarkino active ilmihii noqday haddana weli marxaladii ilmuhu wuxuu ku jirayaa ama aan ku jiraynaaba marxalad ishba soogan bay dhahaan jarmalku ama maxaa la dhahaa egocentrish yaa in cunugu asaga keliya wax walba uu asaga isku saleeyo uu u maleeyo wax walba in uu asaga ay khuseeyaan weli ma uusan gaarin inuu maaragtay barto in wax dadka kale dareen ka duwan kiisa inay leeyihiin weli wax walba wuxuu u haystaa asaga keliya inuu iska fakaro ilmuhu marka wax walbaba aniga ay noqoto wixiisii laakiin waa ilmo wax kale uu fahmayo ma jirto oo aqoontiisii baa intaa ku salaysan taasi waxay ka macno tahay buu yiri das heißt wir können die Welt nur als unsere eigene Sicht wahrnehmen ilmihii asaga keliya aragtidiisa ayuu wax walba ku salaynayaa asaga aragtidiisa ma oga markaa in aragtitiisa ka duwan inay jirto aragtidiisa asaga wuxuu haystaa aragtidiisa keliya inay sax tahay aragtidiisa keliya inay jirto marka weli cunuga waa egocentrish waa ishbasoogan aniga keliya oo maxaa la dhahaa ku salaynayaa wax walba waa waxay u ooyayaan waa waxay dhulka isula dhacaan waa waxa yacni weli ilmihii ma fahansana in
qofka kala dareen ka duwan uu leeyahay, aragti ka duwan uu leeyahay, maxaa la dhahaa rabitaan ka duwan uu leeyahay ma fahmi karo. Wax walbaba tiisa kaliya ayuu ku saleynayaa.